معكم من الباخرة ماسا جي. ذهبنا إلى أوكرانيا وشحنا مادة القمح، شحنا 28600 طن وعبرنا بسلام مرورا بتركيا، وعملنا الكشف اللازم في تركيا وفي وصولا إلى بربرة. في بربرة وصلنا لمنطقة المخطاف يوم 18/9/2022 الساعة 5:20. markabkan gadaashayda taagan oo magaciisa la yiraahdo Masa Che kana yimid dalka Ukraine sida qamadi xaddigeedu yahay 18600 tan una sida warshada daqiiqda alwadaniga ee ku taalo gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera. markabkan faaruqintiisa ayaa noqon doonta 2500 load oo ay kala qaadi doonaan ku dhawaad 100 gaari. sidaad aragtaan 100 gaari oo ka kala yimid gobolada Soomaaliland ee kala duwan, taas oo ah fursad kale oo ay abuurtay shirkadda daqiiqda alwadaniga gaadiidleyda Soomaaliland. qolada maamulaysa miisaanka iyo masnaca NFMC shaqadu waxay ka bilaabataa xaggan markii gawaaridu soo galaan ayagoo qamadi sida miisaanka koowaad soo fuulayaan asagoo gaari gorano qamadi saaran oo la caburaya miisaankiisi kadibna xaggaas uu tagayaa markuu raashinka iska soo rogo xaggaas ku rogaya oo dalacaya hamaha dalacaya kadibna uu soo wareegaya miisaanka labaad buu soo fuulaya. markuu miisaanka labaad soo fuulo asagoo faaruq soo fuulaya markuu alaabta soo siday marka miisaanka labaad wuxuu soo jaraya faaruqi markaas uu soo sheegay inta ka dhiman gaariga. aritaan halkan waxa weeye halka ay qamadidu ka soo gasho warshada. baabuurtu halkan ay qamadidu ku shubtaa, kadib waxa qaada chain conveyor xagga hoose ku yaala, kaasina wuxuu gudbiyaa baakid elevator oo kor u qaada, kadibna dabaqayni muuqda ayaa waxaan ku sameynaa cleaning amba nadaafad bilowgeed. halkan waxaan kaga reebnaa qamadida wixii la socda ee birlab iyo dhagaxaan waaweyn iyo dhasba. markaan sameeyno nadaafadda bilowgeeda ee dhagaxaanta ka reebno aan ka reebno wixii birlaba iyo dhaskaba, waxaan ku shubnaa haamahan waaweyn ee afartan haamood tiba waxay qaadaa 7500. marka qamadidaan aan soo xareyn kara waxa weeye 30,000 tan. kadib waxaa loo qaadayaa chain conveyor-ka jiifa, kadib wuxuu u gudbinayaa baagdan fitirka kurbigeynaya haamihii afarta dushooda ayuu maraa. markaan rabahan ka mid inaan doorto calaamadda imika muuqata bilowga akhtarka ayaa dooranaysa. markaan doorto waan istaaraya, kadib taasaa buuxsantay ta kala gudbina markay way buuxsamaan ay diyaar noqdaan ayaa waxaan sameynayaa waxaan rabaa inaan soo geliyo gudaha oo aan warshada keeno. kadib waxaan haystaa 5 haamood. 5 haamood qamadida banaanka taala ee istorgan ayaan soo gelinaya. kadib waan istaaraya labada halkan shidaya waxay qaadaya chain conveyor ma qaadaya
baakida filterka ma gudbinaya kadibna haamahan taan rabo inaan cabeeyo amba aan wax ku shuba ayaan ku shubaya marka diyaar in noqdaan shanta haamad ii buuxsamaan ayaa waxaan samaynayaa waxaan rabaa inaan ku sameeyo baalkii first cleaning way marka nadaafadda koowaad ku sameeyo haan ka mid ah imika waxa iga socotaa maanta labadan haamood ayaan ka doortay kadibna marka koowaad yani waxaan eegayaa inta capacity-ga amba inta ii soo dhacaysa imika salaamka saacadii waxa soo dhacaysa 14 tan bay hawar markii haamay buuxsamaan waxaan sameeynaa cleaning-kii kadibna waxaan eegayaa capacity-ga aan rabo inaan ku shaqeeyo maanta saahan 14 mar inaan ka saaro 14 waxaan ku sameynayaa marka koowaad waxaan ka reebayaa wixii baalka bira haddana waxaan ka reebayaa wixii dhagaxaana haddana waxaan ka reebayaa wixii quraarad iyo wixii aan qamadi ahayn aan loo baahnayn marka intaas oo dhan ku sameeyaa nadiif noqoto waxaan ku daray biyo markaan biyaha ku daro biyahan ujeedadu waxa weeye si galka iyo qamadidu u kala baxaan amba loo jebin karo markaan biyo ku daro waxaan ku wareejinayaa haamaha kale laba haamood kale labada haamood qamadidu waxay ugu jiraysaa ugu yaraan 12 saacadood marka diyaar in noqoto 12 saacadood gaadho ayaa waxaan sameynayaa ku soo wareejinayaa haanta ku soo wareejinayaa haantan waa ta ka bilaamo ridiqo oo turida ka bilaamo kadibna haantii buuxsanaya waxaan ku soo shubayaa B1 kadibna taas waxa qabanaysa qamadidu way kala jebinaysaa markay qamadidu kala jabto inta ku xiday jebinaysaa saas stage wada waxa waa jijibin ka labaadna waa jilcin amba bixin ka dhigaysaa ka labaadna cadaan ka dhigaysaa marka waxay diyaara markaas waxay diyaara waxaan ridqayay kadibna waxa kala baxaysa daqiiq iyo buusha wuxuu tagayaa haamaha buushaha daqiiqda waxa tigsa haamaha daqiiqda kadib markay diyaar in noqoto ayaan cabeynaya daqiiqdan aan ku soo shubaya haamaha laga cabeeyo oo daqiiqdu waa 5 kilo buushona waa 40 kilo qaybta shaybaarka shirkaddan NFC amba NFMC alwadaniya shirkaddan u khaasa inay soo saarto daqiiqda noocyadeeda kala duwan iyo calafka anaguna waxaan nahay qaybta u khaaska in ay baadho ama quality-ga ama tayada waxyaabaha shirkaddu soo saaraysa ka warhaysa qamadida deetana waxa la sameeyaa saambula ayaa la soo diraa intaan la dalmaamo marka la dalbado kadib ayaa saambul ay soo diraan saambulkaasa deetana kadib anagu aan baadhnaa hadduu saambulkaasi yahay okay oo qamadidaasi ay nacajibiso amba ay ka soo baxdo shuruudihii lagu talagalay kadib baa qamadida la dalba deetana la keenaa waqtiga doontaha qaada shirkadda alwadaniya waxay ibafur u ahayd maalgashi ay hesho magaalada Berbera taasoo ahayd warshadihii iyo shirkadihii ugu horeeyay ee ka hana qaada magaalada Berbera taasoo ibafur u noqotay in warshado kale iyo ganacsato kale ay ku soo hirtaan inay maalgashadaan magaalada Berbera shirkadda alwadaniya waa shirkad saamiley ah taasoo ay leeyihiin ganacsato ajaaniba iyo kuwa maxalliya wax soo saarka warshadu wuxuu kaga duwan yahay wax soo saarka daqiiqaha kale ee dibadda ka yimaada inaad ka heli karto warshada alwadaniya 3 nooc oo daqiiqa ah sida tamoofada oo loogu talagalay moofooyinka daqiiqda guryaha taasoo ay guryuhu u isticmaali karaan baahiyahooda kala gedisan sida laxooxda sambuusaha sabaayada iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaan soo kordhinay daqiiq cusub oo magaceeda la yiraahdo haboon taas oo ah daqiiq aan u baahnayn inaad budo ku darto oo isku filan ah taasoo loogu talagalay in laxooxda laga sameeyo gunaanadkii fariinta aan bulshada u reebaynaa waa daqiiqda alwadaniya waa daqiiq fresh ah ee wadani ah oo wadankeeni laga soo saaray
fadlan muwaadin isku day inaad ka qayb qaadato kobcinta iyo dhiirigelinta wax soo saarka warshadaha waddankeena taas oo ah waxa lafdhabarta dhaqaale ee waddan walba uu ku faano waxaan rajaynaynaa in aad daqiiqda alwadaniya goob kasta iyo goob kasta oo aad u baahato ka heli doonto